gees ka mid ah bariga London shaqada goobtan yar ee meydadka la dhigo waxay noqonaysaa sheekooyinka UK laga sheekayn doono fayraska corona dhammaan bulshooyinka halkan ayuu saameeyay laakiin goobtani maalmaha kooban lagu hawlgeliyay waxay qabataa baahida xooggan ee duugta ay u qabaan bulshada muslimiinta Eeshiyaanka ah kuwaasi oo si ba'an ugu dhuftay cudurka qaar ka mid ah meydadka ayaa laga keenay cisbitaalka u dhow halkan ee Royal London kuwaasi oo in badan oo ka mid ah noloshooda ku tukan jiray masjidka bariga London markii ugu badnayd waxaa goobtan la keenayay maalintii ilaa 25 May sababtoo ah qabriyadu waa ay buux dhaafeen maamulka masjidka bariga London waxay dareemeen inay ku tahay waajib inay tallaabo qaadaan markii ay bateen meydadka muslimiinta waa wax caqliga ka baxsan dadku niyadda ayay nooga xumaan lahaayeen qoysaska iyo bulshada haddii aynan u qaban waxa saxda ah dadkeena dhintay gaar ahaan kuwa sida degdegtaha u geeriyooday waxay nagu noqon lahayd cid aynu dareensanaan lahayn weligeen inta aynu nool nahay gabar ayaa ina soo wacday masjidka bariga London waxa ay tiri aabahay ayaa ku geeriyooday cisbitaalka hooyaday guriga ayay karantiil ku tahay ma arki karo sababtoo ah waa inaan ka fogaadaa iyada mana arki karo aabahay inta aanan la aasin xaalad noocaas ah ayaana soo martay ilin ayaa indhahayga soo dhaaftay hadda oo aan kula hadlayo xaalku sidii waa uu ka sii xun yahay dadku waxa ay dareemayaan caawinaad la'aan waa wax caadi ah inta badan marka aynu dareeno kaalmo la'aan in qaar diinta u laabtaan inkastoo Royal London laga yaabo inuu yahay mid ka mid ah cisbitaalada ugu sarreeya adduunka had iyo jeer fursad yar ayaa jirta waxyaabaha muhiimka ah wadaad muslim ah ayaa halkan jooga waa Ayman Faaruq Sadiqi wuxuu ku faanayaa xiriirka cisbitaalka Royal London uu la leeyahay qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ugu ballaaran Britain wuxuu ku socdaa inuu arko bukaan xaalado caafimaad qabta oo si xun ugu dhacay COVID-19 waxaana loo ogolaaday inaynu muuqaal ka duubno weli way nooshahay laakiin waxay diidan tahay inay qaadato wax tallaabo daawo ah oo lagu badbaadiyo marka ay teedo gasho Faaruq wax badan ayay qasab ku noqotay inuu aayadahani akhriyo intii lagu jiray masiibada It's really important for not just the patient but runtii aad bay muhiim ugu tahay bukaanka iyo caruurteeda iyo qoyska kale waxay u tahay nasteexo inay ogaadaan in shiikh u yimid uu u duceeyey waxa laga yaabaa inay noqoto markii ugu dambaysay ee ay hadasho ayna tiraahdo erayada ugu muhiimsan diinteenna ma jiro ilaah aan alla ahayn and say the most important words in our faith which is la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah